ama duulaha guutada 130aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee Buuhoodle halka waxaan ku qabanaysaa jaraa'id ka soo khuseeya deegaanka Buuhoodle ku saabsan nabadgelyadiisa taasoo ay dad ka horinayaan colaad oo ku baaqayaan jamhado waxaan cadeynaynaa in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan Buuhoodle uu taagan yahay inay sugaan ammaankiisa wax jamhad la yiraahdaana ayaan ka shaqeynayn wixii amni iyo gobolka wax ka qabadkiisa nabadgelyadiisa ku saabsan waxa weeye ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa taagan waxaan lagu weydiinayaa wax jamhad la yiraahdo oo ka shaqeynaysa ma jirto waxaan leeyahay oo u sheegayaa cuqaasha deegaanka Buuhoodle maanta Buuhoodle colaad iyo xabadinimo dan ugu jirto waxaan leeyahay inay ka digtoonaadaan waxana iskaga ogaadaan una daneeyaan deegaankooda iyo magaalada ay ku nool yihiin talisan ognahay dhawaan gobolka waxaa laga dhawaaqay jamhad oo dib baa loo cusboonaysiiyay maamulka SAC oo Soomaaliland hore dagaal la galay oo wax walba la qabtay odayaashii wax galata ka soo qayb galay maxaad ku diidantihiin ma la shaqeysaan oo gacan siisaan waa dadkiini waa deegaankiini waxa qabanayaan maxaad gacan u siin weeyeen waxaan kaga jawaabayaa kuwa maanta sheeganaya SAC horta SAC waa la garanayaa goorta ugu dambeysay inay shaqeeyaan cid walba waa ogtahay ma aha ujeedku SAC ma aha waa xoreyn Soomaaliya sanaaga cayn anigu waxaan u aragnaa ka ciidan ahaanba in lagu soo duulay deegaanka la qaban in laga horiyo colaad. Assalaamu calaykum anigoo ah taliyaha maxamed xayd taliyaha howlgelinta darajadaydu tahay 3 digle kabtan waxaan halkan u nimid oo shirkayga jaraa'id yahay nabadgelyada hadda Buuhoodle waxa ka jirtay nabadgelyo buuxda SCC taliyay iga horeeyay ba sheegay SCC waxay ahayd wax bari shaqayn jiray oo aan ahayn wax hadda la bilaabayo cusub waxa ka dambeysay nabadgelyo SCC jamhad baa ahayd xabad bay bilowday nabadgelyo ka dambeysay haddana tan waxay wadaa waa nabadgelyo jirtay inay duuliso wixii ka dambeeyay nabadgelyo noqonayaan anagu waxaan sheegaynaa oo halkan u taaganahay inaan marka hore cid kasta oo isku dayda inay deegaanka khalkhal ka abuurto aanan indhaha ka qarsanayn kana qaadayno tallaabo cad anigoo Mawlid Jaan Xasan ahna taliyaha guutada Gocandhaale ee ciidanka qaranka Soomaaliland guutada 130aad sidoo dadka hore ba sheegay halkan waxa u taaganahay anagoo ciidanka qaranka Soomaaliland nabadgelyo yaanu awal ka shaqeynay imika ka shaqeynayna mar walba waa ku khasbanay nabadgelyada anagu cidiisa diida ummaduna yaa arkay islaamkuna yaa arkay anagu dagaalma ka laaban wixii dhibaato dalka deegaanka iyo dhibaato ku wada waxaan sheegayaa deegaanka dhibaato lagu soo waday muddo soo socotay mujtamacu waa arkay inta anagu meesha guama dab ku shubin waqtiin anoo kala carana deegaanka iyaga badbaadin dhibaatadii ku dhacday hadda koor iyo culayskana taabtay inaan la dib lagu soo kordhin